ururka al-shabaab ee sida weyn uga soo horjeeda dowladda Soomaaliya isla markaana ku xiran ururka al-qaacida ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu dagaal adag la gali doono dowladda cusub ee Soomaaliya isla markaana uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Xasan Yacquub Cali oo kamid ah hogaamiyaasha kooxdaasi kuwa ugu caansan oo la hadlay mareeg dhinaca wararka faafisa oo al-shabaab ku xiran ayaa waxa uu sheegay inay u diyaar garoobeen 4 sano oo cusub oo dagaala ujeedkuna yahay inay la galaan dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo saaxiibada la shaqeeya ee ku dhow Xasan Yacquub Cali hogaamiyahan ka tirsan al-shabaab ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in shabaabku ay aaminsan yihiin in madaxweyne Farmaajo uu uga qatar badan yahay madaxdii hore ee Soomaaliya marka loo eego xagga fikirka iyo aragtida uu wato iyo waliba caqiidada uu aaminsan yahay ee ka dhanka ah ururkaasi sida ay hadalka u dhigeen ururka al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya ayaa si weyn looga sugayay hadalkooda ku aadan dowladda cusub iyadoo markastana la filan karay goodin ka timaada sida lagu yaqiinay hase ahaatee isbedelka ka hana qaaday Soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid ka taageero badan xagga shacabka dhammaan nidaamyadii soo maray dalka xilli ay xusid mudan tahay in Soomaalida ay hadda ku hanweyn tahay nidaam dowladeed oo si rasmi ah uga taaba qaada mandiqada geeska bari ee qaaradda Afrika